السلام عليكم مركلة مجيء وهيفاء وحن أرضيات كهاي كلية دجنعسك السؤال شيء ذو حيتهاي ملو أقول يهاي هوينيدا مسلمات دعة إني محاضرة جود سوجيدو هدي أي حجاب حرنتهاي هدي سن أرين تاجرين محاكلو أي سمين كرتا وأنا ما هتصنتها walaasha su'aal ayayna weydiisay ma loo ogol yahay haweeneyda muslimadda ah inay xadiis caam ah oo dacwada ku saabsan soo jeediso iyadoo xiran xijaab marka loo fiirsho soo jeedin xadiis caam ah haweenka hortooda wax dhiba ma lahan arinta xaaskayga waa daaciyad ma sha Allah waxay soo jeedisay muxaadaraad boqolaal haweenka kamid ah hortooda meelo kala duwan oo caalamka kamid ah Sacuudiga Dubai Mareykanka Canada iyo dawlado badan haddii gabadhu ay soo jeedinayso muxaadaraad meel aan markaasi laga helaynin rag oo ay haween oo kaliya joogan wax dhiba ma lahan laakiin marka loo fiirsho haday haweenadu soo jeedinayso xadiis caam ah meel dadku isku dhex daran yihiin rag iyo haweenku culimadu waa ay ku kala aragti waxa leeyahay culimada qaar oo dhahaya waa u suurtagal haweeneyda inay masraxa korto sida masraxnada aniga aan joogo kale kadibna ay dadkan isku dhex darsan oo dhan ay wax u soo jeediso laakiin culimada u dhow quraanka iyo sunnada waxay leeyihiin looma ogola haweeneyda inay muxaadaro guud ka soo jeediso meel dadkan isku dhex darsan yihiin aniguna waxaan waafaqsanahay kooxda labaad ee culimada maxaa yeelay quraanku wuxuu ku leeyahay suuratu nuur waa suurada 24aad aayada 7 ku dheh muuminiinta nabi allow halaabaan indhahooda farjiyadoodana ha xifdiyaan marka ninku fiirinayo haweeney haddii madaxiisa ay ku soo dhacdo fikrad aan wanaagsaneyn waxa ku waajibay inuu indhihiisa laabo haddii haweeneydu ay xadiis caam ah soo jeedinayso raguna ay dhageysanayaan oo ay daawanayaan waxa ku waajibay inay indhahooda ilaaliyaan oo hoos u dhigaan haddii qof igu yiraahdo waxaan fiirinayaa haweenka waxna ma dareemayo kaas wuxuu u baahan yahay dhakhtar nafsiyadeed laakiin ninku haddii uu muxaadaro soo jeedinayo waxa jira haween aniga hadda i daawanaya aayada ka dambaysa aayada aan soo qaatay suuratu nuur raqamka 24aad aayada 3aad ku dheh ragga muuminiinta ah waa inay laabaan indhahooda farjiyadoodana xifdiyaan aayada ku xigta suuratu nuur suurada 24aad aayada 3 waxay leedahay ku dheh gabdhaha muuminaadka ah waa inay laabaan aragyadooda xifdiyaana farjiyadooda laakiin se baxdiga cilmiga maanta wuxuu sheegayaa haddii ninku fiiriyo haweeney indhihiisa aragtidooda aad ayay u weyn tahay marka loo barbardhigo haweeneyda marka ay fiirinayso ninku jinsi ahaan waa ka dareen badan yahay marka uu fiirinayo haweeneyda marka iyadu ay ninka fiirinayso sidaa darteed sababta natiijooyinka diraasiga ah waxay noqotay kuwo wanaagsan madaarista taasoo kala saaraysa labada jinsi inay ka wanaagsan tahay in ninku uu dad badan oo isku dhex darsan wax u dhigo ama dumar badan inay haweeneydu u dhigto qayb badan oo ragga kamid ah arintaasi waa baxdiga cilmiga jaanibka kale haddii haweeneydu ay fiiriso nin ama aan aniguba kamid ahay haddii fikrad madaxeeda ay ku imaato aan wanaagsanayn waxa ku waajibay inay araggeeda hoos u dhigto laakiin haweeneydu waa ay ka dareen yar tahay marka la barbar dhigo ninka sababta darteed waxaan waafaqsanahay qaybta labaad ee culimada kuwaas oo dhahaya looma ogola haweeneyda inay muxaadaraad ka soo horjeedido meel dadku isku daran yahay macnaha ragga iyo haweenka sida darteed sababta anagu markan ka soo muujinayno haweeney TV-ga Bis TV anagu soo muujinayno wax ka badan 3 البرقسي ما جرت معلومات قرآن كجرا أما حديث كوده 3 البرقسي أما labo ama shan waa ijtihaadkeena xitaa haweenka xiran dharka wanaagsan ee asturan anagu kama soo muujinayno wax ka badan 3 ilaa 4 elbirqsi si ragga daawanaya aysan waxba u dareemin idan walaashay anigu waxaan waafaqsanahay qaybta labaad ee culimada sidee marka aan dacwo u istaagayaa qasab maaha in ninku koro ama haweeneydu korto meel masraxa si ay dacwada u gudato walaashay waxa suurtagal ah in dacwada ugu istaagto dhanka internetka ama bridka elektrooniga ama waxa loo yaqaan cinwaanada ama dacwada aad ku gudato qorida kutubta marka dacwada laga hadlayo waxa wanaagsan ninku inuu ninka kale dacwada u sheego haweeneyduna haweenka labku inuu lab u sheego dadiguna dadig
dawladaha qaar markaan aado waxaan arkayaa nin daaci ah oo gabar muslimad ah la sheekaysanaya aadna ugu dhow haddana wuxuu ku leeyahay dacwo ayaan u sheegay xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay inuusan jirin nin la fariistay gabar qol u xiran ilaa shaydaanka ayaa saddexaynaya xitaa aniga ma awoodo inaan dacwo u istaago haweenay waliba anagoo kali ah waxaan leenahay markas dacwi ah munadamatul bahthul islaami hay'adda baaritaanka islaamiga ah waxaa jira qayb rag ah oo dacwada u istaagaya ninka nin ayaa dacwada u sheegaya qaybta haweenkana haweenay kale ayaa u sheegaysa haddii ay jirto mushkilad weyn oo ay suurtagal ahayn haweenaydaas in la qanciyo oo markaas dhibaato noo la geliyo markaas maxramkayga ayaa ila soconaya ama xaaskayga ama walaashayda ama xitaa ninka haweenaydaas aan wax u sheegayo qaba ama walaalkeeda ayadoo la jirto inaan argayga hoos u dhigayo waa kaas islaamku ka weeyaan waxaana waajiba inaan raacno tacaaliimta iyo irshaadaadka islaamka markaana aan dacwada u istaagno annaga oo ka shadaal qaadanayna shareecada islaamka marka loo fiiriyo haweenayda adiga waxaad haysataa masaaxo weyn oo ku taal Mumbai haweenku halkaas dacwada fardiga aad ay uga badan yihiin ragga faraca Mumbai waxa agteena ah tiro badan oo haween ah oo islaamka soo galay waliba ragga way ka badan yihiin munadamatul bahth al-islami ma sha Allah waxa la helayaa jalasaad aad u fara badan agtooda waxa jira jalasooyin aad u fara badan mashaakisha dadka isguursaday bisha Ramadaan qoyskii Quraanka waxa jira in badan oo fadhiyaal ah warshada yoomiga ah ee amalka 3 maalin ama usbuuc waxay leeyihiin muxaadaraad boqolaal kun oo haween ayaa muxaadareeya ma sha Allah laakiin waxa wanaagsan oo waajib ah in labku lab wax u sheego dhadiguna dib u sheego waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay